Hay'adda caafimaadka deegaanada waqooyiga Norway ee Health North ayaa lagu soo waramayaa in adduun lacageed oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar koronka Norwejiga ah loo isticmaalay si aan caadi ahayn sanadkii tagay ee 2024. Arrintan ayaa timid in ay hay'addani bixisay ku dhawaad lacag ka badan 1 milyan iyo bar oo koronka Norwejiga ah taa oo ay ku qarash garaysay ilaa iyo 19 shaqaale ah sanadkii tagay ee 2024. Afar ka mid ah ayaa ah agaasimayaal kuwa oo helay guryo bilaash ah kuwa oo ku yiilay bartamaha magaalada oo uu qarash ahaan ku kacayay in ka badan nus milyan koronka Norwejiga ah. Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyay oo dabagal ku sameeyay warbaahinta TV2 ee laga leeyahay dalka Norway, waxayna ku waramaysaa in 40 agaasime ay hay'addan ka qaadanayeen malaayiin koron oo ay ku shaqaynayeen sanadkii tagay ee 2024 ayaa lagu soo waramayaa in 19 shaqaalaha ah ay qarash ahaan u isticmaalayeen lacagtaas aadka u badan iyaga oo u kireysnaayeen guryo qaali ah oo ku yaala bartamaha magaalada. 40 agaasimayaasha oo lagu kala magacaabo Marie, Fjellheim, Kim iyo sidoo kale Ola ayaa lagu soo waramayaa in ay guryo bilaash ah ka deganayeen santarka magaalada Bodo, halkaasoo qarash ahaan ay ku bixisay in ka badan nus milyan koronka Norwejiga ah. Si taalamida ayaa lagu soo waramayaa in hay'adda Health North ay u kireysnaayeen 3 apartmenti kuwa oo ku yaala bartamaha magaalada Bodo ee waqooyiga dalka Norway, kuwa oo ay ku noolaayeen 3 ka mid ah maamulayaasha ugu sarreeya hay'addan oo ay deganayeen. Waxaana arrintani xaqiijisay agaasimaha hay'addani oo lagu magacaabo Anita Metezoni. Waxa ayna intaa ku dartay inaysan jirin qarash xadidan oo loogu talagalay arrimaha noocaas ah, taa oo mararka qaar keeni karta in ay xadka ka baxdo. Hay'addan ka shaqayso arrimaha caafimaadka waqooyiga Norway ee Health North ayaa lagu soo waramayaa in laga dareemayo hoos u dhac baaxad weyn oo dhanka dhaqaalaha ah sanadkan aynu ku jirno ee 2025. Waxaana lagu soo waramayaa in hoos u dhacaasi uu gaaray inta u dhaxayso 350 ilaa iyo 400 oo milyan oo koronka Norwejiga ah, taa oo ah dhaqaale aad u baaxad weyn oo ay hay'addani hoos u dhacday sanadkan 2025. Baaritaanada lagu sameynayo dhanka dhaqaalaha isdabamarintooda ayaa aad u sii xoogaysanaya guud ahaan dalka Norway, waxayna warbaahinta iyo hay'adaha kala duwan ee loogu talagalay musuqmaasuqa ay wadaan baaritaano xoogan oo ku saabsan arrimaha isdabamarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale guud ahaan musuqmaasuqa ka jiro hay'adaha iyo shakhsiyaadka iyo shirkadaha kala duwan ee ku dhaqan dalka Norway. Halka warka kuwada ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.